Soomaalidu waxay dhahaan moogtaa qabiil iyo qabyaalad. Horta baadiyaha qabyaalad ba kama jirin ba. Baadiyaha dadka qabiilo kala degan ay ahaayeen. Dadku waxba iskuuma darsaneen ba. Reeb halkaasay degan yihiin geelooda iyo xoolahooda ay dhaqdaan qabiilka waaba oday dhaqan ay u lahaayeen waa dad la yaqaanay ahaayeen. Qabyaalad goormay timi? Qabyaalad waxay timi markii dawladda la noqon la yiri. baadiyaha sidiisa asay qabyaalad ma u baahnaba sababtoo dadku qabiil u degan yihiin ba. Xoolaha iyo geelo dadka ma isku darsana oo ka baxsan yihiin. Laakiin markii aan wax isku darsanno oo aan dawlad noqonno yaa qabyaaladii timid marka. Qabyaaladiisay ku timid ilaa markii wax la isku darsado muwaadinimo sida waddankan Canada oo kale dadka inay muwaadiniin wada noqdaan oo xuquuq iyo mas'uuliyad siman ay leeyihiin hal raba soo maaha kala eexashadaas marka oo dawladdu la isku kala eexday waliba markii hore waxa la aasay haddana iyadoo qaangaara ay gadaal ka soo baxday marka qabyaaladda maxaa marka waa markii awoodii dawladda allan dawladda waxa la saddex ku kulansan awoodii siyaasadeed prestige-kii magacii iyo heybadii iyo sumcaddii iyo sharaftii iyo resource-kii dhaqaaliha ku wada jira ayada la isku qabsaday markaas ayada la iskaga eexday marka waxa laga yaabaa adoo professora oo khibrad way aragnimo leh qof in laga kor keeno oo madax ku noqdo aan weligii soo shaqeyn ilaa haddana waa socotaa hadda aan hadlaynay socotaa waxa laga yaabaa adigoo ah generaal barabarata wax dhigi jireen oo kulliyad askari ka soo baxo rasmi ah in mid xidigla ah oo ku taliyo way soo dhacday haddana way taagan tahay haddana weli waa taaganta waxa laga yaabaa adoo diblomaad veteran ah oo muqadrama oo diblomaasiyada ka soo shaqeeyay wiil yar in laga soo kor magacaabo marka meesha marka ay mushkilada ka dhacday qabiilka maaha aniga qabaa'ilnahay Soomaaliya nahay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il ilaha li ta'arafu wa reebel anta dhib male meesha problemku ka taagan yahay waxa waaye meeshii muwaadin laga noqon lahaa muwaadinimo oo loo sinaa lahaa xuquuqda iyo waajibaadka oo fursadaha loo sinaa lahaa ama day shaqo tahay ama haday mansab tahay xil tahay ama haday qandaraas tahay ama haday tahay taasa noo shaqeey weysay taasa lagu kala eexday oo qof walbaba qof inuu ka xigsado qofkii kale oo dawladnimada la iska xigsado ayay noqotay meeshaas marka waxa ku dumay wax allaali iyo wixii muwaadinimada sal u ahaa lahaa